halkani waa Hirshabelle TV. بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada waxaa sharaf inoo ah maanta inaan soo dhaweynay wafdiga walaalaheena qadar inooga yimid maantana ay noo tahay daahfurkii waddo dheer oo 120 kilomitir ah oo ay noo fangareynayaan walaalaheena qadar fund إن شاء الله تعالى وبقول 20 كيلومتر مدة أيوه سوسع البرنامج كان حال سنة أيوه سوسع قرشيه سو وأنا هذا مشروعي وجوينا رنتي شرف بيانات هاي كمباني يكوجول استين وأنا لجوجا وكمباني تركيشة ما أنت أيوه صحيحي دعي إسلام ما أنتنا ده فركي شقدي باللابان يساعدوا إلى هيدمه ومالين تاريخية oo guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay mahad gaar ahna waxaan uga haynaa walaalaheena Qatar ayaa dhammaan dawladda Qatar iyo dawladda Turkiga iyo xubnaha labada gole ee dawladda dhammaan inta halkan joogto aadan idin salaamaya waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan joogno dhagax dhigii mashruuca runtii aan aad u sugayno waqti badan oo qaybta ka mid ay tahay jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar kaasoo runtii qayb weyn ka qaadan doona horumarinta Hirshabelle iyo Shabeellada Dhexe iyo gaar ahaan xamar caasimadda ku xiran runtii aadan u soo dhaweynayna barnaamijkaas madaxweynaha waa u mahad celinaya waxa kaloon aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiilaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaan maanta u joogno halkan dhagax dhigidda iyo bilaabashada dhismaha jidka xamar iyo afgooye iyo jidka xamar iyo Jowhar waxaan mahad u celinaynaa dawladda Qatar madaxdeeda iyo dadka nooga yimid oo iyagu runtii na garab istaagay kuna bixin doona adduun lacag ah oo jidadkaas lagu dhisi doono waxaan u mahad celinaynaa dawladda Turkiga oo iyaguna ah dawladdii qandaraaska ku guuleysatay oon rajeynayno in jidkaasi uu noqon doono jid la mid ah jidadka dunida waxaan u hambaleynayaa labada madaxweyne maadaama maanta ay maalin cusub u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo shacabka dawlad goboleedka Hirshabelle iyadoo la bilaabay in laga fuliyo mashruucyadii ugu waaweynaa sidii dalkeena u bilaabay dibadhiska maanta waa maalin iftiin cusub u ah ganacsatada iyo beeraleyda ka yimaada labada Shabeelle oo ay u dhib yaraan doonto mustaqbalka inay ganacsadaan maanta waa maalin dhib yar oo u dhib yaraan doonto mustaqbalka dadka Soomaaliyeed oo meelahaas ka jooga maanta waa maalin iftiin u muujinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah shaqadii ay soo bilowday xukuumadda 2 sano ka hor ayaa mira dhashay 2 sano kadibna waxaa la arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo mashruucyadan u dhamaaday shaqada maanta aan hayno 2 sano ka hor waxay u muuqatay inaanan ahayn macquul maanta waxa idin muuqda iftiinkaas aan hore idinkugu sheegnay waxaan aaminsanahay marka in haddii shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda isgarab istaagaan sida waayahanba dhaqanku ahayd la gaari doono horumar intaan ka sii weyn ugu dambeyntii waxaan leeyahay labada madaxweyne iyo dhammaan dawlad goboleedka iyo shacabka Soomaaliyeed ee labada gobol ka soo jeeday ee gobolka Banaadir iyo dhammaan ciidamada iyo cid walba inay garab istaagaan shirkadaha dhisaya jidadkaas sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa waxayna noqon doontaa shaqo miro dhasha